dadka macnaha ka soo horjeeda waxyaabaha sameysay koronay ma waxa maanta sameysay waxaas waa maali yani ama waxa war marka sameysay dadka ka fogo wada sama okay aanu su'aalan jalaal inaan ku weydiiyaa jirta taasi oo kulli markaan imika soo eego qof horumar fiican sameeyaa tahay qof walbana marka horumar sameeyo kulli wuxuu baa macnaha de ka hor joogsaa ama dhibaatooyin bala kulmaa marka dadka horumar sameeya isla dhibaatooyinka la kulmay maxaa kula tin lahayd waxaan kula tali lahay waxay kamid tahay kalan ku weydiinay waxa jira dad badan oo macnaha idea haya laakiin si ilaada insha Allah bari baan sameeynaya insha Allah sanadka dama sameeynaya lacag bay ga dhiman family-kiigu ma raba inaan shaqo aan leeyahay sameesto waxay rabaa inaan anigu dad u shaqeeyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عبد الرزاق برنامج كنا واحد نلدين دونا هدى أو بكر سودو ولا قال هدى وعليكم السلام ودوها ولا هذا ما صنت هاي هذا يتيم كعجب تيم درس له صح أنا ونقصدو إننا بدك كل ويابين لو حسلين كبرتني وعيو مركب مسوق عشان كرته هدى وعيو yes هدى وقف دقن ستوكهولم هذا يوتيوب عصب كوسو بيرتا يوتيوب كا مركا واحد بدن ولا أركو دونتي هذا هوري أركين قاركين ولا جاوا إني هوري أركين especially team كاجا سويدن كاجا الصعبة إني يقانا أنا بدن تهاي إنتنا يخون إني برشلو نكسل وهدى هدى نقصدو إننا معنا دنك يوتيوب هان يدنك معنا real life هانتبا labadaba kusoo dhaweynaa kusoo dhaw takaleanku weydiinaya waxa weeyaan huda ma business woman ba macnaha ma waxaa tahay qof business la adigu ما شاء الله Stockholm business ku leeyahay business markaa oo na cooperate garay Sweden dhan alxamdulillah waxaana ku jirnaa qaybta care-ka waxa loo yaqaan home care iyo personal assistant care بدر وحياة قانا دتك وستيجا دجن مركا تيم كصومالي جوجا دار حوجو سيتا تابتو وحواي دتك ويلك أما دتك نافذة يعني قبسن كرين وحياة القاركود دت وقبطئين على الدراسة مركا recruiting بان وسمينا مركا وانا أو service أو دولة إيكادي بس مركا دولة دا contract أنا لنا هو كلاته marka alxamdulillah team balaarnaan hay adiga hada teamkii hoos imaado waxay gaarayaan ilaa 50 waxaan rajeynaynaa inaa mustaqbalka dhow adiga sanadka soo socda iyo kan dambe la wajibaadkeeda at least aan noqon صح ما شاء الله gabadh fiican oo macnaha horumar ballaaran sameeyay tahay aad baan ugu faraxsanahay macnaha gabdhaha horumar ka sameeyo ku faraxsanahay magaalada badan ku aaminsan yihiin rag inay horumar sameyn karaan laakiin aad baan ugu faraxsanahay inaan aragno macnaha gabdhaha iyaguna horumar aad u fiican oo aad u ballaaran sameynaya dal iyo dibadba ما شاء الله برنامجك عن مش أصول قلني وحويان أصحابي لحظة قضب أو هاتي أثرعضو أب هو مركو جاري كرتو بصوبته أنا أقول نسفعني نورتا كلي عنو هرمر في عوان سميع أمالين يا سوي من نسيب بابا هودنا سيدين كيدين ما شاء الله هودنا سيدين كيدين شكتبا يدنا مراتي كلي هذا اللي كيف أنت بهرمر في عالي يدنا ويسميسي مركا لبضي كلي هرمر كوحوا كان نقانا أورمينا معنا وحنا نايد كوفي على لكن وحوا كررنا مقالتين مركا هودو دنك عاد ما حد كورين لا معنا دنك هاي مكلحظة قضب ما يهرت ما شاء الله هرمر آد ونكسن آيات قارتي قف وحتى هاي كده يشمودا ما أنت مركلا فيرنا أي إنفلونس دنك صومالي إذا كليت تبودت هو وين أي كجرتا مركا I don't know هل ملي واو دافت بسمها الحمد لله مركا أنا سيدا كليت هرمر كي دنك يوتيوب كما هلاكين ودنيال كليت so yeah ما أنت مركا وحن إذا لقب سنة qodobyal aad sameey kartiin oo kale ah sida goal setting ka hadii aad noloshaad aad rabtid inaad wax ka bedeshid ku fududeenayo oo hadii aad ku adkaysid kaas aad raacdid natiijo fiican aad ka gaaraysid صح وقرني كلي إني تفهم يا برجينيا هداي ما نوشي كرتين تاني اللي حتى قدوب كلين ميل لو إيمان كرو ما تدري سيد هدا الربع حقين وإيمان كرو ما ندنك يوتيوب كي إنستغرام كي وحا اوكي دانك يوتيوب كا وحواي هدى تاجر waxaa haysta YouTube channel aan ka hadli doono horumarka dhaqaale investment waxyaabahaas kale sida qofku sameeyo yani kobcinta nafsada
haddii Instagram ay la soo xiriiraysidne waa hoodies waa magacayga marka huda waa 2D hoos kole kugu soo qori doonaa walaal marka waa hoodies hada YouTube keedana xagga ma soo dhiga screen-ka bana warkiis ma malaa channel-keedu waa kaas ay idin sheegayso Instagram keeduna waa kan xagga aan soo dhigay isagana warkiis ma malaa screen ku yaala marka labadaas ba mana wad kala xiriiri kartiin description ka hoosta ama linkiga hoostana waxaan soo dhigi doonaa maraha channel-keeda marka maraha video dhexdood ka helaysaa maraha xagga guda kala xiriiri lahayd marka wax kalood intaa ku diri lahayd ma jirtaa meel kale haddii business ahaan aad rabtaan inaad ila soo xiriirtaan waxaad igala soo xiriirisiin vad24.se marka waa pagekeena shaqada qofka dhanka pageka oo shaqada igala soo xiriirayo waa teamkaaga Sweden ka daawne marka idinkana waxa halka igala soo xiriira waa vad24.se ama vårt24.se på swedishka reer Sweden maraha qofkii raba in uu waxyaabaha qaar laga caawiyo ee ku saabsan waxyaabaha ay gabadhan qabato halkaaba kala xiriiri kartaa marka imika waxaan u maleynayaa inaan bilaabi karno manaha qodobka ugu horeeya ee manaha qofku horumar ku sameyn karo waliba horumar aad u fiican maxaad oran kartaa qodobka ugu horeeya qodobka ugu horeeya waxa way horta inta qodobka ugu horeeya aan la gaarin qodobka ugu horeeya wax ka horeeya ayaa jirto taasna waxa way horta qofku waa inuu rabis ay jirta inuu meel tiigsanayo ay jirta soo hadda adigoo kaleeto maanta masha Allah influence aad weyn ayaa tahay YouTube-ka waxaad ka gaartay success aad weyn so marka taa kulay waxa keentay rabis weyn aad haysid Soomaa inaad waxaad xiiseynayso marka qofku waa inuu rabis taa lamid ama ka sii weyn uu haysto ee kuugu horeeto soo u channel gareeyo energy-giisa صح وفهم كرا كلي ربست وعطوه ورئيس بين ما يمكن كذا قارن مكان هذا channel شناد أفرنا واحد هذا محل فرنا سلا كي واحد يقول أنا وراه ما قرأت ما كان وارون ربستو وواحد أوه هرنا هذا الربي مهم مسمين كده هذا الربتين وهي واسمين كده بين ما تاس so marka qofki markuu rabistaas aad u weyn oo haysta ay walaxti tahay nooc min al burning waxa way burning desire Englishka ee dhahan kaleeto aniga waxaan ku misleeyaa sida dadka markay buufiska kaleeto ee tahay wax Soomaali markay wax ay ku tilmaamayaan kale qofka wuxuu soo u rabay buufis uu ku dhacaybo marka waa in rabista noocaas markay taaganta qofka waa la muhuraan horumar uu gaaraa so rabistaas bes markay taagan tahay haddana qodob kale taad si raacaysa jirto waxa waaye in aad okay rabistu waad haysataa haddana waxa aad rabtid maxay tahay clarity ma ka haysataa so hadii kale hadaad tiraado kale YouTube waa inaad bilaawdo waa inaad si ogtahay kaleeto branch keerta inaad ka hadashid nichkaaga muxuu noqonayaa so kaawa inaad clarity ka haysatid iyadana so marka qodobka koowaad marka rabistada laga soo gudbo waa qofka inuu haysto clarity yani yoolkaan arba inaan gaaro waxaan arba inaan sameeyo yani wax oo specific iska noqonayo okay mana YouTube soo galaya YouTube soo galaya waa inaan gartaa waxa YouTube ka dhax qabanayo barnaamijka aan sameeyay yani maxay noqonaysaa waxa ka hadli lahayd maadaama YouTube iska weyn yahay adoo tiraad amal business aan bilaabay yani businesska noocee bilaabaysa business afku wadaaya mana waynaad garanaysaa businesska bilaabaysu wuxuu yahay sax وين دورتي يعني هذا أنا كير دورتي لكن قف كله تو حلقة يابا إنه دورته إنه product وكذا إنترنت كله بس هذا هذا نرك أد كذا collection هذا أي سيد business وان وذاقنا لكن ما كله دورنا سمع ورون تاس صح so marka qodobka koowaad waa inuu qofka clarity uu ka heystaa wuxuu uu rabo inuu sii qabto rabista ka soo okay sax qodobka labaadna maxaa oran karnaa qodobka labaad waxa markaad dhahday okay waxaan rabaa waxaan inaan sameeyo waa inaan la soo daado deadline aasiisa okay goormeed rabtaa inaad gaartid goalkaas haddii aadan waqti deadline aadan qabsanin oo cayiman maskaxdaada ma ogaanayso mana kugu wajahayso inaad ka gaartid meel oo la taaban karo waxaas okay صح so marka waa inaad dhihi kartid oo kaleeto waxaan rabaa inaan YouTube bilaabo aan ka hadlo subject hebel December bisha sanadkan December namees markay tahayna waxaas inaan ka gaarba ama kama dambeyn waqtigaas inaan bilaabo yani waana goal yeelataa goal yeelataa oo definite wala xataa yani waqti haysta deadline haysta oo aad isaad hadhood isku weydiisid waqtigaas qabsadee maxaa dhacay taas noo muhiim ma warunta ka saddexaadna maxaa oran karnaa
qodobka saddexaad waxa waaye waa inaad og tahay wax kugu imaanayo free ma jirto wax walba aad rabtid inaad heshid wax unbay maxaa la dhahaa aad ku bedelinaysa ku doorsanaysa ama lacagtooda ee tahay marka lacagna kaliya kuma saabsano mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay tahay inaad waqtigaaga horeysid mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad lacagtiibna sadahaanteeda aad gelinaysid oo kaleeto mararka qaarkood ama inaad wax kaa soo horjeeda aragtid wax ku dhiba aragtid adigoo wadada ku socda sax ha aad ka tanaasuleysid ha so marka wax un waa inaad ku doorsanayso hadda tusaale oo kaleeto haddii aniga oo yahay goolkayga in aan dhahno kale 10 kiilo ee iga dhacdo kaleeto waa cuntooyinka qaarkood kaleeto aan ka tanaasuleyso way adag tahay inaad cuntooyinka qaar joojsid laakiin waa inaad joojisaa sababtoo aad waxaad rabtaa inaad yaraad joojiyaa hawana goolkaas gaari darteeda inaa caato raba ama mid kalena way ahaan kartaa inaa haddana exercise aan sameeyaa maalintii waqti kaleeta ayadana aan huro 1 saac oo kaleeta aan u qiimeeyo waxaan aan dhaho halkaas saac exercise sameeyana sida goolka u gaaro sax waa marka waa qofka qodobka saddexaad waa marka inaad wax iska imaanayso ma jirto waa inaad wax ku bedelat yani wax uu maana wixii ka soo baxa waxa soo dhan waa inaad diyaar u ahaataa oo wax walba wax hori kartaa saas u fahanay sax haddii aan qodobka afraad u gudubno ka afraadna waa maxay baa isleedahay adu qodobka afraadna waxaa waaye markii aad maalinta aad bilaabaysid waqtiga deadline-ka aad qabatay inta u dhaxeeysa waa inaad activity plan aad samaysatid action plan maxaad qabanaysaa si aad goolka u gaartid qofkii oo goolkiis ahaa kaleeto inuu iscaateeyo marka waxuu soo gelinaya samaa week kasta waxaan gymka aadaya intaas waqti maxaan ku yiraahdaa cuntada markay tahayna waxaan baan ka tanaasulayaa isbuuc hal mar baa iscabiraysaa oo arko horumarkeygii marka waa activity plan ilaa iyo goolkaaga maalinta ugu dambeysa aad ka gaaraysa aad haysid kaleeto 31 December waan gaaray goolkeyga waxaa waaye 10 kiilo way ii buuxsantay aan rabay inaan iska tuuro okay maana si aad wixii u aragtid oo maana u tiraadid okay intaas oo dhammaan wax soo sameeyay waa inaan arkaatay wixii maana resultigi taas ka wada miya ha exactly yani action plan wax oo sida hadoo kaleeto business-ka oo kale aad ku jirto aan ku jiro waxaan leenahay Soomaaliya sanad kasta waxa sameynaysaa goal aad rabtid inaad gaartid sanadka marka 12 bilood ayaa ku jirto sida goolkii December 31 goolka aan rab lahaa inaan gaaro waa in hadeer aan shaqada si kala qaybiyo 12 bilood bisha maxaa qabanayaa bishda maxaa qabanaya meeqo yani teamkeena sida u balaarinaya marketing nuucee sameynayna client-yaasha nagu soo biirayso yani waxyaabahaas kale waa inaad jirtaa maana process aad maraysid processkaas waa marka action plan-ka okay sax waan gartay ta shanaadna maxaa oran karnaa ku tilmaami karnaa tan shanaad marka waxaa waaye goal aanan qorin goal ma aha yani wax niyad maskaga haysan kartid waxa saaraba inaad sameeyo ma dhihi kartid yani hadii aad go'aansatay waa inaad warqad ku qortid ama kaar ku qortid ama meel aad ku qortid book oo markasta available ku ah marka waxaad qoraysaa goolka aad go'aansatay waxa ay tahay kaleeto aan dhaho kaleeto inay tahay 10 kiilo inay ka dhacdo deadline-kii hadan qoraysaa kama dambeyn goolka waxa gaaray 31 December ee sanadkan aad haysaa kaleeto hadana wixii aad ku doorsan lahayd oo kale tahay waxa ku doorsaday inaad subax alisayda 1 saac soo kaco aan hurdadeeda ka tanaasulo 1 saac oo aan halka saac exercise aan ku sameeyo cuntayaasha qaarkoodna aan ka tanaasulo ha marka statementigaas marka waa is soo xasuusinaysaa maalintii adiga 2 jeer ugu yaraan subax marka soo kacid iyo habeenkii marka seexanaysi marka maskaxdaada markaas ay u soo xasuusato inaad tahay qof oo goal sameystay ee goalkaas wadadiisa raba inuu haayo markaad isu soo xasuusid ee meel kugu qoran tahay way ka fududahay inaad marka jadwalka aad sameysatay aad ku koobnaat yani stick with it okay sax imika tusaale ahaan anigu saan sameeyo waxa weeyaan haddii aan rabo inaan manaa video la sameeyo videoyaasha imika tusaale aan beri sameynayo kale waan sii garanaya magaalada sababtaa way qoran yihiin marka taa macnaheedu waxay tahay waa inaad wixii sii garanaysaa ay ku qoran yihiin si aadan manaa u ilaawin manaa haddii aan maskaxda u odhan maskaxdan ku kaydinayo maalintan doono waxaa sameynaya oo manaa dee kadibna aad u eegi kartid wixii aad samaysay maxaa manaa horumar fiican sameeyey maxaa yara xumaa maxaa adkaa maxaa manaa dee ay dadku aad uga heleen oo kale ha maasha allah qodobkaas waa qodobku aad ugu muhiimsan waa follow up allah kaas waxaa marka inaad maxaad fiicnaaday maxaa fiicnaani kee sii wadaya
marka qofku waa inuu follow up kaas markasta uu sameeyo ugu sii fududaato okay goalkayga hadda miyaan ka weecday ma ka sii wanaagsanaatay resultka aan helay iyo wixii la mid ah marka ma sha Allah example kaaga waa aad u wanaagsan صح sababtoo taasaan sameeyaa anu macnaha waxaan eegaa ideashii aan qoray tii macnaha horumar fiican sameysay dadku ka heleen iyo tii ay macnaha dadku ka helin kadibna macnaha dee waan garanaya waxaan saa dambe aan masaakuuda sii sameynay sababtoo ah wixii oo dhan way qoran yihiin ma garanaysaa marka taas waan sameeyaa wayna fiican tahay kulli dadka oo dhan oo kula tilnaa qodobka ugu dambeeya muxuu yahay bas oranaysaa Huday qodobka oo shanaad iyo lixaad mid isdhexgal ay ahayn marka qodobka shanaad waxa statementiga markaad qoratid kan lixaadna waxa isa soo xasuusi markasto contractigan ayaan nolosheeda nafsadeeda la sameeyay inaan goalkan gaaro waqti waxaan igu qaadanaysa xasuusintaas way marka midka qodobka lixaad inaad markas isa soo xasuusitid hadaa rabtid jikada talaajadaada meela arkaysid markas ay muuqato kale iskaga dhigso si marka maskaxdaada xatee waxay ku sameynaysaa programming adoodan ogeyn oo kale waa waxyaabada oo fududeyn karo inaad dabeecadaaga iyo bedelmadaan oo kale aad nafsadaada ku okay aanu su'aalan jeclaan inaan ku weydiiyaa jirta taasi oo ah kulli markaan imika soo eegno qof horumar fiican sameeyaa tahay qof walbana markuu horumar sameeyo kulli wuxuu baa macnaha dee ka hor joogsaa ama dhibaatooyin la kulmaa marka dadka horumar sameeya isla ee dhibaatooyinka la kulmay maxaa kula talin lahayd waxaan kula tali lahay waxay kamid tahay waa a part of the process haddaadan caqabado aadan la kulmin marka dee waa dad waxa la dhaho maxaa la dhahaa Swedishka waxa lagu dhahay iga dhunta haddaadan caqabado aadan la kulmin dadka xitee muu loo maleynayo inaad waxaan successkan aad gaarto waa overnight success waxa la dhaho overnight successna badanaa maba la arkaba so caqabado waa la kulmaysaa laakiin waad tijaabo lagu tijaabinayo waa inaad sii adkaatid waa inaad wixii ku celcelisid markasto haddii wax ay kaa qaldamaan mar labaad ku celi mar saddexaad ku celi ilaa aad ka saxaysid oo kaleeto persistent taa success kala sheegaya dhanba waa kaa sida hadda adigoo kaleeto masha Allah meeqa video sameysaa meeqa channel haysaa like motivationka what's keeping you up samaha waa persistent maanta oo dhan ama ka hees ama ka heen waxa aad balan qaaday inaad soo dhigtid waad soo dhigaysaa samaha marka success-kana taas waa waxa lagu gaaro qofka inuu taa xasuusnaada ayaanta koowaad way iska dhib badan tahay laakiin hal mar markii ku furmatane markasto way sii fiicnaanaysaa yeah marka don't give up marka hadalkii la soo koobo waxa waay do not give up waad helaysaa waad gaaraysaa mar dhow si aan kugu sii fududaato dad positive la saaxiib oo goalkaaga ama goal noocaas la mid ah haysto marka waad si saacidaysiin oo isku meel u socotiin dad dad aad kaaga fog ama waxaad daneynaysa aadan daneynin oo kale haddii aad la saaxiibtid adigu baa ka caajisaya waxaagii oo gadaal baa u dhacaysa marka waa aad muhiim u tahay the people that you surround yourself inay ahaato dad oo isku nacayso okay marka taamaalidu waxay tahay badanaa waa inaad la saaxiibtaa dadka aad isku shaqada tihiin ama ku motivate gareynaya koronaya horumar fiican baad samaysay kuwan dadka macnaha ka soo horjeeda waxyaabaha sameysay koronaya ma waxaa maanta samaysay waxaas waa maali yani ama waxaa horumar sameysay dadka ka fogo baad leedahay soma okay masha Allah exactly ikasto community geerana iskaga badan yihiin kuwa dambe aad dhahday marka waa inaad dadka aad la soconaysid waqtiga aad la qaadanaysid waa inaad very wisely aad u been ma dadku marka ugu horeysa way kula yaabayaan ee wax sameynaysid laakiin kadib markaad wixii sameeysid macnaha qoftee wixii horumar ka sameeyay noqotay koronaya warsaa ku muudin ama gabadhan saan maanan moodin macnaha inaad saan sameyn kartid maan moodin dadku macnaha arrintaa way yaqaanaan waa wax macnaha bilaadan ka dhaxeeya takalan ku weydiinay waxa weeye waxaa jira dad badan oo macnaha idea haya laakiin se yiraahda insha Allah bari baan sameeynaya insha Allah sanadka dambaan sameeynaya lacag baa iga dhiman family ma raba inaan shaqo aan leeyahay sameesto waxay rabaa inaan anigu dad u shaqeeyo ama doctor baan hotel maskaliya waxaan ka wadaa hospital baan rabaa inaan anigu kaliya sameesto laakiin family waxay leeyihiin mee hospitalkan ay dawladdu leedahay oo kale u shaqeey kana dhaama sababtoo ah hadaad kaliya aad furtay hospital in dad ku soo geli waayaan laga yaabaa marka dadkaas adu maxaad yar oran leedahay ma aad u sheegi lahayd horto qof haddaaba ku qasban tahay inaad fikrad ka qaadatid
ha noqdo qof asagii wadada aad rabtay maray hadda aniga hadaan YouTube rabo inaan qof aan ka wareysto qof weligiis YouTube aan sameysan kama wareysanay qof soo jabay soo dhacay laakiin kama dambeynta success ka gaara adigoo kale tan ku dhahaya bal waran mentor noqo sidee xagee wax u sameynaya yani caawi samaha ama marka hadda adigu tiraahdid huda halkan ka leex inta mar yani waa advice oo aan dhihi karo khibrada ku dhisan tahay laakiin haddaan dhaho saaxiibadee igu tiraahdeen na YouTube ha ku sameysan YouTube ma fiicno de waa fikradeed un bay ka hadashay maahan wax oo la qiimeyn kara ma aha marka qofku waa inuu xasuustaa yaa way qofkan talada ka qaadanayo ma qof oo aan xushmeynayo khibradiisa mase qof aan khibrad haysan iska fikrad dhan business haday imaado fikrad wax ma tarayso qofka inuu wax uu ku saleynayo jirta okay sax waan gartay marka so dad badan horta raalo dad badan way jiraan oo iskaga dhashtay iyagu xataa daba ka wadin inay niyada ka jibiyaan oo jecel ina dadka ay wax ka celiyaan laakiin xasuusna qof horta markuu talo xataa ku siinaayo qofka asaga wixii awoodiisa buu ka fikiraya soo hadaan maanta da timaad ay tiraahdid hudaay maxaa baabaki diyaarad baan kaxayn karayaa أنا ما كحين كريم وقتها سأني limitation كي أجي إذا ما كسر كلها مايا وحس معقول ما هني ما نقف ريسو مركو أوجو قفك ومركو هلا أسيب limitation كيس إسكا هلو بدنا عادك وما صار سمع دام لوقف أكلتهين مركا واحد ربتيت راع persistent نهاو وادجاريسا قفك مركز تو أوجو كيس كل جناد قد بدر راعو ودada lagu gaaraya lama huraan okay sahwan ka si fiican baad mara taadadka ugu sharaxday way fahmeen baa malinaya mid kale oo aan huda ahaan idea ku weydiinaya jirta oo jiraanayna ku weydiiyo huday adiga hadii lagu ilaa maanta labadan mid dooro ama labadan qofku teebu horumar fiican ku sameyn karaa in aad dad u shaqaysid iyo in aad adigu business kaaga yeelatid bal adu تاب حد كلنا تيست معناه هرمون في عن كسر مين كرتاه أما العكس في عن كسر مين كرتاه أما تاج كنا كرتاه تيل جودي ما حدا لنا يلاقوا هدي عاد ربتيد إنا تاجر نقطيد وقصب إنا business owner نقطة إن هدي عاد شقالة عاد تهاي معناه ذو حواي وقتي جاء بعد كده سا وقتي جاء جني أنا كنا لبعتني 4 ساعة بهاي سنة 6 ساعة كم إذا وان سيحنا 4 ساعة كم إذا وأنت فاميلي كين كده وريك سنين 6 ساعة إلى 6 ساعة برنو شقة وقتي قاعد كذي ستواي مركب وقت أسميس وقتي قاعد سفي عدال جو قيمة حتى لو جو ما قيمين كرو إن كوجفلان التاجر إكاديكتو مركب 9 to 5 مرة ما أهان مد أو كوجارسينس مال تاجر نما هذا هاي هميجا إن تاجر أنا قلت أما مال أو لا تعمل كرات هشيد دان وإن تكفكرت تسيدا بيزنس أونر كن كراس ده يعني ضد شقة أبورس أو سمين كراس سيرفيس أو اللي جعلي أما برودكت اللي جعلي هاي سيدا دون كوجوسو كنت كراسو innovation وإن كفكرت innovate. أوكي مركب بقول كي بس سجاش قفكا isagu macnaha shaqo samaysta business samaysta ayaa ka chance badan qofka qof kale uu sii shaqeeyo saas ayaa ka wadaa soo ma ibika boqolkiiba 99 iyo baraxdeedii kulli dhalinyaradu waxaan rajeynayaa inay macnaha si fiican noo fahmayaan si fiican nooga faa'iideysanayaan sababtoo ah dadka qaarkood waxaa macnaha maskaxda lagu programmiyo inay shaqeeyaan iskuuladana dad badan ay u fiirsatid dadka waxaa la baraa un sida qof loogu shaqeeyo macnaha aanu intaas oo dhan iskuul soo bartay ama wax soo dhigtay way igu yarayd sida la ii baro macnaha inaan keligay wax qabsado waxaa la oran jiray haddaad doonaysid inaad waxa noqotid waa inaad macnaha waxaas oo kala noqotaa laakiin lama sheegi jirin oo lama oran jirin dee ama iskuulada badanaa kuma badnaba boqolkiiba 90 baa oran karaa kuma badno in lagu yiraahdo dee keliya wax qabsan karaa business baad u samaysan kartaa badanaa waxa la yiraahdaa qofkaas ama shaqadaas fiican inaad shaqada ka shaqeysid ba fiican inaad qofka u shaqeysid marka wallahi ma sha Allah aanu boqolkiiba boqol waxa oran karaa dad badan inay ka faa'iideen waxaan aan maanta ka hadalnay marka adu ugu dambeyntii maxaad oran lahayd Huda Abubakar mise Huda Taaj tan kugu yeena ma taaj la kugu yeena Huda Abubakar mise Huda Taaj ما Huda Abubakar Huda Taaj يعني waxa waad maadaama aan jeclayna markasto horumar iyo success iyo sidaan dhaqaale fiican ku heleen aan ka hadalno marka taajir meesha ka imaado so
taajir da igu wacdinay waa soo dhaweynaya I wanna waa raba inaa sii manifest garayso so yeah programming ka mid tahay inaad aragtid waxa haday qodobka aad ka hadlayay marka waa saas ma ahan ina yani isla weyn ma ahan dad qaarkood inay fahmaan tahay laga yes marka waa sida sheegtay society-ga u dhisan in markaad iskool dhiganaysid lagu tababaro inaad doonti markaas iskoolka dhameys aad shaqo raadsatid xirfadan barasa shaqo u heshiday war shaqo laga hadlaa marka waa inaa laga hadlaa abuurista iyo business inuu qofkii bilaabo asaga wax isku taro midna wajirtaa oo waxaa jirtaa wax cabsi lilaa magaranaysaa dadku badanaa way ka cabsadaan waxay ka cabsadaan inay khasaaraan wax lagu orani alaniyo waxa waan samayn lahaa ama waxa waan qaban lahaa laakiin khasaaraan ka cabsanaya bilow khasaara bilow aan waxaan fahmi waayaa badanaa dadku malaa taas bay ka cabsadaan magaranaysaa khasaaraha iyo waxaas laakiin waxaynu ogeyn baa umaalinayaa dee haddii aad mar rabtid inaad wax qabsatid waa inaad diyaar u ahaataa inaad khasaartid iyo inaad faa'ididbaba muhiimaduna waxa weeyaan inaad wixii isku daydid maanaa isku daygaa muhiima wixii haddaad samayn weydo tiraadid waa khasaaraya dee maadan khasaarin ba weliye ma garanaysid wixii inaad tiraadid maaha dee waxaan u malinayaa inaan khasaarayo ama ka cabsanaya ama dee magaratay markaa wixii waa inaad adu bilowdaa oo macnaha dee odhan waan samayn doonaa ama aadan dee cabsi ka dareemin ama aadan khasaaran ka sheekayn maadaama wixii yahay dee wix aad is leedahay waad jeceshahay oo macnaha dee horwalbaa ka samayn kartaa markaa waxaa oran karaa barnaamijku waa inoo gabagabo Huda Abubakar kulli dadkuna maanta way ku baranayaan macnaha qofkaa tahay takalna Abubakar maxay dhadaa iga saa Huda Abubakar Abubakar okay baadka okay sababtoo waa isku meeshi oo ku fahmay Huda Abubakar tan baan ahay laba bacma okay Huda Abubakar okay ama Huda taajir baa ku yeeraa ama Huda taajir baa ku yeeraa kareebna Huda taajir baa ku ayday anaka taajirno ma baa okay good markaan waxa ku yeeraa Huda taajir Abubakar taas dadka ku yeeraa ad qof walba tii u dhibira ku yeeraa ma garatay marka barnaamij fiican baa ka hadashay waxaan rajaynaynaa inaan fiidiyoyaal badan insha allah halkan soo dhigno oo macnaha waxyaaba badan ka hadalno dadkan waxa u sheegi lahayn in ay Huda Abubakar la socdaan macnaha janaalkeeda iyo shaqadeeda iyo waxyaabaha kale ay qabato waxaan jeclaan lahayn in ay dadku idea ama waxa ay rabaan inaan ka caawino ama waxa ay rabaan inaan u sharaxno ay commentiga noogu soo qoraan si aan uga soo hadalno barnaamijka ku xiga hadduu ilaahay yidhaahdo marka Huda adigu ugu dambeyntii maxaad oran lahayd taageeraha iyo dadka ina daawanaya macnaha jecel inay horumar gaaraan ama iskaba jecel entertainmentiga takalada ka xol sheegnaa inaan video kala soo wadno oo macnaha waxyaabo kale ku saabsan marka waan baahaynaa insha Allah hadduu ilaahay yidhaahdo waxyaabo badan baan qaban doonaa marka ugu dambeyntii adigu maxaad oran lahayd maya ugu dambeyntii waxaan dhahayaa dee waad arkaysiin dariista siduu idin jecel yahay oo horumar inuu idin gaarsiiyo uu rabo marka insha Allah isla socono programmada soo socdana ku xirnaada marka yes anna kala idinka la socda team darisle waan ku soo biiray meeshaan ay soo dhaweeyaan soo dhaweyn doonaan hadda duutay mikada video maga daawata linkeedu tii ka taa u sheekata in darisle abdi ka timiday ama videogiina ka timiday 6 qodob ani iyo Huda daadihinay like-tana kiilaawina subscribe-tana aad muhiim tahay soo dhaweey gabadheeni macnaha ku faraxsan horta inaan arkaan gabadh horumar sameeyay magaranaysa macnaha aanu nahay mika waxyaabo kale ka hadlay taa aad baan ku faraxsanahay sababtoo ah dad badan bay indhaha furaysaa gabdho badan oo daawanaya ayaa waxyaabo badan fahmi doona marka aad baan ugu faraxsanahay waa qaali Huda Abubakar inaan macnaha video ka sameeyno oo video badan sameyn doono insha Allah oo horumar ballaaran sameyn doono macnaha kan maad ku jirna ma ka weyn marka anu intaas macnaha ku soo gabagabeyn lahaa videoga waanan dee idin wada salaameynaa dhammaan intana daawanayso dhan intana taageerta inta cusub iyo inta Huda garanaysa iyo intaana garanayn iyaguna barasho wanaagsan marka yes wanaagsan waana mahadsan tahay marka waa ka masha Allah ha iloobinahay inaad like garaysiin aad u subscribe garaysiin intiina subscribe gareenin already صح boqolkiiba boqolaad ba mahadsan tahay xalka kalena mana ay ilaawina Huda inaad tagtiin channelkeeda kulli comment kana soo bin garan doonaa description kana soo dhigi doonaa marka aad ba mahadsantiin kun jeer oo inoo video da baad ilaa yiraahdo